halkani waa duleedka magaalada Muqdisho waa kaamka Weydow ee barakacayaasha naafada ah gaar ahaan kaamka Midnimo ee ku yaal Tareedisho oo ay degan yihiin dadka aragala Maryan Xuseen Cismaan halkan ayay ku nooshahay waxay ii sheegtay in muddo 10 sano ah ay araga naafa ka ahayd balse ay maanta markii ugu horeysay heshay caawinaad ah in la siiyay usha ay isticmaalaan dadka aragala usha waxyaalo badan oo dhagax markii hortayna ku dhufunayna insha Allah kulli waa dareemayna meesha dhagax yaalo waa ka leexanayna ushana noo tilmaamid khayr Allah si walaaliyalka waa caawiyan adii aakhirba Allah caawiyo laakiin wax rabda in la noo dadaalo walaaliyalkan Soomaaliyeed wiil iyo gabdho dhaxdood Allah u dadaal inay noo dadaalaan anaka qof ama aragto masaakiin ah ilaahay dartiisa oo noo shaqeeyaan aan rabna ilaahay Allah caawiyo ururka awoodsiinta naafada Soomaaliyeed ayaa munaasabada maalinta caalamiga ah waxay sanadkan caawinaad siiyeen dadka aragala intii hoteelo la isku tago qarash lagu bixiyo dadkii ii sheeg halkaas fariinta laga gaarsiiyo lagu kala tagi lahaa waxaan garanay Soden team ahaan in aan dadkii u dhawaano soo aragno bedelkii ii sheeg ku bixi lahaa hoteeladana aan deeq aad iyo aad ii sheeg u weyn oo muhiim u ah dadka naafada ah aragala inaan u geeyno waxaan ii sheeg deeqda gaarsiinay 23 qof sida arkaysiin waxaan qaybinay ulashan dadka naafada isticmaalaan dadka aragala waliba iyadoo kaamka ay ku nool yihiin boqolaal qof oo araga naafa ka ah wuxuu maamulka inoo sheegay sidan wuxuu ka kooban yahay waxa uu ahay 2 kaam oo diris ah oo wada naafa oo mid ay degan yihiin indhoolayaal midna ay degan yihiin dad cuuryaameen ah oo lugaha la sidaas daraadeed labadaas kaam oo meesha ku taala waxaa la soo mala marxalad kala gedisan oo dadku markay naafa yihiin waxay ku nool yihiin dadka walaalahooda ama muxsiniinta ama diriska ah ama mataqaana ehelka ay ku dhex jiraan waxaa yimid cudur la yiraaho coronavirus cudurku wuxuu keenay in ay naqato ha itaaban ku taabamaaye lama hayo tirakoobka saxda ah ee dadka naafada ee ku nool dalka Soomaaliya waxayse badankooda u jilicsan yihiin duruufaha adag ee uu dalku ku jiro gaar ahaan colaadaha qaar ayaa ii sheegay inay faquuq kala kulmaan bulshada iyo qaybaheeda kala duwan qaar kalena caawinaad ba ha joogtee waxay naawilayaan in ay qadarin iyo sinaan helaan bela sheego BBC Muqdisho.